ninkayga oo aan dhowr iyo 10 sano salaada ugu taaglaayay markastoo aan kala hadlana aan isku dhacayno ma ka qaadan karaa fasakh ama guurka ma iska fasakhi karaa qofka taariikh salaadka hadii aynu yiraahno waa muslim waa si culimaduna badayn oo diintii wali kama bixin caasi weyn weey macnaheedu wax way xaaski kama furmin xaasnimadii dhexdooda way jirtaa haddii xaasnimadii jirtana de xaqiisi waa inuu fuliyaa yana xaqeedii ay fulisaa xaqana ilaahay baa ku leh aduguna waxaad ku leedahay waano marka waanadaas aad leedahay qasab malihi mar haddaanu gaal ahayna fasakhaad ma dalban kartid xuquuqdaadii kalena uu bixinayo inaad arrintan kaa daacad tahay oo aad ugu dadaalayso ayuunbaad muujin doontaa ehelkaad u diriyo asxaabtaad u diriyo sida arrimahaagaba marka aad had iyo jeer riixaysa aad u riixdunbaad salaadana u riixi لعل الله يهديه والله يا بينه إلهي صاهن ونيو لكن واحد أسبابتي أتكون فسخانة يسمعها وحتى حنونا قار أفكا كردعاء ودبيتنا بدلا أرطا أفكا كسب حيسا مركا قفك حنون كاقبا شمعة يمساجد مكان مغنان كرا يقولون يمساجدهم كرا بدل شمع حكم البخاري والجماعة في الجماعة qofkii afkiisu urayay jamci muxuu ka yeelayaa waa waxda qofkii lagu imtixaanay isagu wuxuu samaystay maahe waa dhibaato dadka qaar kood caafimaad oo haysata oo laga yaabaa qofka agtiisa jooga inuu tukanba kari waayaba marka waa aafo ku ibtilaysan oo isagu dambi kuma laha uu ku ibtilaysan yahay culimadu waxay leeyihiin haddii uu iska hagaajin karo jamci uu tagayaa مثلا واحد جرى دواين لا استعماله أما قدر عضيها تقاركود آد وتقول يهين بهال كان لا يراد هاي العتكة هاي كان على عادة بوربورا بركآد له على شده ورطوا بإياه ليلة هاي وحده فاتقوا الله ما استطعتم إلهي كعب صدى أنت كري كريساه بركادو كري كري وحن أفقى سود جونيست كدبنا جمعي كمان دعي هدانو تاسينا كبئينين وحينا تشيرو marka ruqsad buu leeyahay inuu jamac iskaga haro oo gooni isaga tukado mar hadduu nabigu yiri kii basasha cunay kii toonta cunay masaajidka iyo imanin qofkana isagaaba ka sii darano waxan dhibaato ku dhacday weeyay hadduu iska farsamayn kari waayay jamac uu ka maqnaan karaa bay leeyahay wallahu a'lam